xarfaanintan waxay dhiwayaan gabadha shaqaalada ka ah maqaaxida waxay dhulka ku daadiyeen kalar kadibna way soo carartay kalarkii ayay tirtirtay kalarkii ayagoo tirtirays ay haddana waxay ku daadinayaan kawashka markay ku daadiyaan waxa u shabaxay wiilkan gabadhi oo saacidayo kadibna markuu saaciday arkeen ayba darsadeen wiilashii marwalba waxay qorsheysteen in ay dhibaateeyaan dhibaato ka weyn ayuu ka sameeyeen mar kale wiilkii ayaa u yimaaday markaas uu ku yiri abaayo samid adduunyadan waa iska dhib badan tahay dadkan noocan ah ayaa ku nool adduunka dushiisa namari kadibna haddana wuxuu arkaya dhibaato kale ayagoo ku sameynaya kadibna uu imaanaya iskoobahan ayuu ku garaacaya dhammaantoodii aabahan aad u jeedaan ilmihiisa ayaa waxay ku sameynayaan dasracaad midda yar oo caqliga badan ayaa u imaanayso waxay ku dhahaysaa aabba maanta waxaan rabaa inaan kugu sameeyo indhasarcaad oo sax ah oo aan dhalanteed ahayn madaxa bakeeriga saaro biyaha ku jiro waxaan ka dhuuqayaa gacantaada amaysan ahaynin gabadheeda maya waa suurtagal macquul idib gacantaada ileen gabadhaas kale ay marka hore waxay ku tashkiilisay markuu madaxa bakeeriga saaro tubada gasho ka dhuuq ayaa leeyahay odayga ma fahansana marka shaxda biyihii markay dhammaadaan oo gabadha tubada ay halkaa ka saarto ayaa waxa leeyahay oday soo deji bakeeriga fiiri hadda fiiri ayaa leeyahay markaasuu fiirna uu yaabaya ami bi ana abiso kuma sheegay xariifkan gabdhaha ursanayo waxa lagu sujeeyay adigoo indhaha ku xiran ka soo saar saaxiibadaada hadaad garanaysa carafteeda markaasuu ursanaya saddexdoodu isku maraya laakiin urtu waxa ku soo noqnoqotay urta midda dhexe asagoo dhinacan u soo dhaat rabo ayuu ku noqonaa waatan ayuu leeyahay saaxiibadeedii aad ayaa ugu maasantahay si qurux badan aad u daawatay muuqaalkan waxa uu soo diyaariyay waa Cabdul Aziz